Bismillah, waxaa bulshadeena dhaqan u ah in caanaha geela aan cabno iyadoo aan dab la marin, taasoo halis u keenta mararka qaar caafimaadka maadaama jeermis ku dhex dhuuman karo kadibna qofka ku sumoobi karo. Waana arrin aad u soo badatay sanadahan dambe isbitaaladan aan joogto ugu aragno. Ku sumoobidda caanaha geela waxaa lagu gartaa shuban iyo matag aad u daran oo lala fuuq-baxo, qandho, qarqaryo, wareer iyo tabar darri, kadibna cadaadiska dhiigga ama bareesharka ayaa dhaco, kadibna kelyaha ayaa howlgabi kara haddii aan qofka laga gaarin. Dhibka jira ayaa ah markuu qofka shuban iyo matag isku arko in dadka la joogo ay ku dhahaan waa caafimaad oo qashinkii kugu jiray ayaa kaa soo baxay oo caanaha sii qurqure si aad u qaras baxdid, taasoo dhibka sii siyaadinayso qofkana noloshiisa halis gelin karto. Arrintan waxay ku badan tahay dadka qurbaha ka yimaada oo caanaha geela xiise u qaba, difaacooduna uu hilmaamay jeermisyada qaar ee dhulalkeena ka jira. Ku sumoobidda caanaha geela waxay ka dhalataa nadaafad la'aanta laga soo bilaabo qofka hasha lisayo, weelasha lagu shubayo, gacmaha isweydaarsanayo ilaa suuqa laga keeno. Sidoo kale waxaa mararka qaar dhacdo in neefkii la liso iyadoo daawo loo mariyay taasoo ka halis badan tan jeermiska. Intaas waxaa looga badbaadi karaa in caanaha la karkariyo si jeermiska iyo suntaba looga dilo. Ogow, caanaha geela oo la karkariyo taasoo afka qalaad lagu dhaho pasteurization hoos uma dhigto waxtarka caanaha, nafaqadana kama disho. Waana fikrad aan waxba ka jirin oo bulshadeenu aaminsantahay in haddii caanaha geela dab la saaro in faa'iidadii ka dhimatay. Caanaha geela oo aad karkarisid caafimaadkaaga ayaa ku jira. Fadlan faafi fariintan oo bulshada la wadaag, waana mahadsantahay. Insha Allah cashar kale ayaan kaga hadli doonaa waxtarka caanaha geela iyo waxa ay cilmi baarayaashu ku arkeen markay barbar dhigeen caanaha kale.